taariikhdu markay ahayd 31 bishii 12 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 27 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex أحمد محمد هاشم عرب 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaasoo kale ah kow taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 8 2016 مرحوم عمر محمد أبيكر لابو مرحوم سرية قوتو بول إسماعيل أحمد إسماعيل مكيالو تاريخ المركز لسدي لا تنكي بشي طبنا لبكون لحي طبن صدح تاريخ تضوية لا تنكي بشي عفران لبكون تضوية طبن مرحوم أكي سرية قوتو محمود حاج علي أفر تاريخ المركز هيد أفر لا تنكي بشي سقال لبكون تضوية طبن مرحوم أكي سرية قوتو حوغة عبد الله محمد شيخ حسن قروروح iyo askari ilaalow ahaa lagu magacaabay marxuum X double xooga Maxamed Bila Gacmay oo ka wada tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed 5 taariikhdu markay 16kii bishii 2018 marxuum Abdul Qaadir Daahir Deeriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed 6 taariikhdu markay 20kii bishii 2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukun sane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 31kii bishii 12 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq